السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan ayaan insha Allah taala waxaan idin la wadaagayaa dardaarankii hooyadu ay la dardaarantay gabadheeda. Dardaarankan waa dardaaran caan ah oo ku soo arooray kitaabka Jamharat Khutab al-Arab. waxaana hooyada dardaarankan maaratay bixisay waxaa la yiraahdaa Umama bint al-Harith. marka gabadheeda ay la dardaarmisay maalintii ay guursanaysay ay maaratay hooynaysay ay galbinaysay habeenkii galbinaysay dardaaranka ay siisay buu ahaa. marka waan akhriyayna insha Allah taala. awsat Umamatu bint al-Harith ibnataha waxay u dardaarantay haweeneyda la dhaho hooyada la dhaho Umama bint al-Harith ibnataha gabadheeda xiina tahayyat li zawaaji markii ay u diyaar garowday guurka. فقالت وحيتري أي بنيتي كودايدي إن الوصية دردارنك لو تركت لفضل أدب قف أدب بضن يعني هدي مارتي دردارن لقدين لها تركت لذلك منك أذى لقدين لها قف كادير اللي يعني قف كان وقف أدب بدن دردارن مبهن إسكدا أذى لقدين لها هو حويا أدبنكو يعني تربية أي كوضع. لكن دردارنكو وتذكرة للغافل وحسوسين قفك اللوبي مارتي موغن أي الحسوسية ومعونة للعاقل قفك عقلك لنا وعيوتاي كالما يوتاي. ولو أن امرأة هدي هويني استغنت عن الزوج نين أي كم مرمي لحيد لغنى أبويها يعني لبدا والد أو هضن درتي يعني أرنتها درادي هدي أي نين أي وقام مارمي لحيد ولدي الله قبضا رير يعني هذا أي كدلتي وشدة حاجتيهما إليها إيو لبدا والد باهدا أي أقبان مارتي قبضو ذا هدي الله قام مارمي لها قود والقور الله قام مارمي لها كنت أغنى الناس عنه هذه أي أهان لها كوا وقو مدى يعني مارتي أرنتها وقو داقتون وأرنتها يعني مارتي أبهنين. ولكن النساء للرجال خلقنا لكن دمرك وحلو أبوري رجع يا الله أبوري ولهن خلقنا الرجال دمرك رجع الله أبوري. أي بنية قبل ذي إنك أذيك فارقتي وحاد كتجيسا وكتكتي الجو الذي منه خرجتي يعني جوي أذكر جرتي آيات كبحيسا وكتجيسا وخلفت العش الذي فيه درجتي وحان ويدارنيسا بولكي هادكو سو كورتي هاد ويدارنيسا يعني نورش هادكو سو قادتي الى وكر وحا اديسا بول وكر بدنا وحا ليرادا بولكا شمبرتا marka guri waxay ka wadaa yani hooyigi waxa tagaysaa hooyi baa tagaysaa ama bool baa tagaysaa lam taarifihi aadan garanaynin. وقرين وحا أتغيسا صاحب أي أتغيسا لم تألي فيه إذن إسبارا أكو عصب. فاحملي عني 10 خصال إيقا حنبار إيقا قاضو طوان تلمامود إيقا قاضو تكن لك ذخرة كيد بيكون قنسا اسحبيه بالقناعة كل صاحب وحاد كل رعدا قناعة نسكو قناعدان وقف قناع سنة نقوتي. وعاشريه كل دقن بحسن السمع والطاعة مقل إيو معها يليتان إينا أطيعضو أرنتاس مارتي كرع وكل دقن. وتعهدي مواقع عينيه إيش كوهي ميلها إيش يكون عيان. وتعهدي يعني كور هاي مواقع عينيه ماش إيش يكون عيس يعني وحن ونكارك مويان. وأنفه سنكيس ماش وراعي ورنيو مارت إسكتشر. فلا تقع عينه إشيسو أين كدعين منك على قبيح وح فالح مارت إشيسو أين كدعين وحقاقه ولا يشم منك ونكاؤرن إلا أطيب ريح مارتي أدقون إيو ريح أدقون أو مارتي يعني عرف مويان وحكالو مارتي ونكاؤرن. والكحل أحسن الحسن عند كوشو قرح تيدا وقرح بدن ويان. والماء أطيب الطيب المفقود بيونا وحا مارتي
ugu wanaagsan weeyaan ee la waayo maaragtay haddii la waayana ugu daran badee ثم اعرفي kabacdi waxaad garataa waqta طacaamihi xilliga uu cuntada cunayo baro oo ogow xilliga uu cuntada cuno badana ogow wahda-ii cinda manaamihi marka uu hurdana maaragtay sid isdeji oo yacni xasilooni guriga ha noqdo oo ororad iyo buuqbuuq iyo maaragtay adiga oo qaylqayliye iyo ciyaalka oo qayliye iyo marka xilligaasna maaragtay ilaali xilliga uu hurdo fa ina tawaatur aljuuci malhabatun gaajada oo maaragtay isgaadhgaadho oo isdaba socota oo maaragtay israaraacda malhabatun waa olol ku ololinaysaa way dilaysaa weyaan wa tanqiisu nnowmi mabqadatun hurdadoo la iska qasaana xanaaq ayay keenaysaa hurdada la iska qasaana cadho iyo xanaaq bay keenaysaa ixtarasii bimaalihi xoolihiisa ilaali warcii ilaali maaragtay xashamahu dadka uu maaragtay asxaabtiisa iyo akhyaartiisa waciyaalahu qaraabadiisa dadkaas waciyaalahu ciyaalkiisana ilaali famalaaku lamri fi lmaali maaragtay xoolaha markii laga hadlayo waxa ugu wanaagsan waxaa weye xusnu taqdiiri waa in si wanaagsan loo asdaadiro oo si wanaagsan loo maamulo wa fi lciyaali caruurtan xusnu tadbiiri waa in si wanaagsan loo dabero arrimahooda si fiican looga shaqeeyo uma attaqii kabacdi waxaad ka baqdaa maca daalika adoo intaa wala sameeye waxaa ka baqdaa alfaraxa amaamahu cinda in kaana tarixan in waxaad ka baqdaa oo iska ilaalisaa inaad faraxdo ood farxad muujiso isagoo oo murugaysan waligti'aaba in kaana farixan iyo inaad murugo muujiso marka uu faraxsan yahay yacni waxaa weeyaan la murugo marka uu murugaysan yahay la farax marka uu faraxsan yahay fa ina alkhaslata aluulaa min altaqsiiri haddii aad matalan maaragtay aad faraxdo marka uu murugaysan yahay waa ka gaabin waxaa weeyaan noloshii lama qaybsanaysid iyo murugadii wathaaniyatu min altaqdiiri midda kalena waa ka qasid jawigaad ka qasaysaad ka hadlaynaysaa walaa isagoo faraxsan baad murugo muujinaysaa marka waxaa weeyaan waad ka qasaysaa walaa tacsiyanna lahu amran arrinna ha ka diidin oo maaragtay ha ka diidin walaa tafshiyanna lahu sirna maaragtay ha ka fidin oo ha ka faafin sirtiisana u ilaali yani warkiisana maqal fa innaki in khaalafti amrahu haddii aad amarkiisa khilaafto ooda maqlin ow qarti sadrahu waxaa weye laabtiisa ayaad hurinaysaa oo maaragtay leebtii ayuu maaragtay ayaad wuxuu kugu qabanayaa wa in afshayti sirahu haddaad sirtiisa faafisana lam ta'manii qadrahu dhagartiisa kama badbaadaysid wa kunii ashadda annaasi lahu icdaama wa kunii waxaad ahaataa ashadda annaasi lahu icdaaman dadka kuwa ugu maaragtay xagga ixtiraamka iyo weyneynta dadka kuwa ugu badan ee yani noqo yani qof aad iyo aad maaragtay u qadarinaya oo weyneynaya yakun wuxuu kuu noqonayaa ashaddahum laka ikraaman ka ugu maaragtay maamuuska badan ayuu kuu noqonaya oo aad buu ku maamuusayaa waclamii waxaad ogaataa annaki laa tasiliina ilaa maa tuxibiina ma gaaraysid waxa aad jeceshahay xataa tu'hirii ridaahu calaa ridaaki raalli noqoshadaada ilaa aad ka hormariso raalli noqoshadiisa wa hawaahu waxa aad maaragtay isagu jecelyahay calaa hawaaki waxa aad u jecesha aad ka hormariso fiima axbabti ow karihti waxa aad jeceshahay ama aad necab tahay yacni inaad saas samayso ayun baad ku gaaraysaa wixii aad jeceshahay wallaahu yukhiiru laki ilaahay baa maaragtay wixii khayra kuu dooranaya oo maaragtay dardaarankii halkaasi uu kusoo gebagabaysay umaama bintu xaarith dardaarankaasoo gabadheeda siisay waa 10 tilmaamood oo aad iyo aad maaragtay u qiimi badan gabadhii qaadatana waxa weeyaan reerkeeda si fiican bay u dhaqanaysaa gurigaasina xasilooni ayaa dhacaysa ixtiraamkii loo baahnaa iyo gurigii loo baahnaa ee maaragtay la tilmaamay ayaa meeshaas maaragtay laga helayaa marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabeynayaa wajazaakum allahu khayran